ardayda wax ka baratay iskoolada ku yaala magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn ayaa maanta galinkii dambe waxa ay jiidaha hore soo joogtay iyo Shangalle oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Khaatume State of Somalia gaarsiiyeen agabyo isugu jira bacaha roobka laga jirsado jaakadaha dhaxanta laga xidho qadifadaha la goglado iyo agabyo kale ayaa waxa ardaydaasi ku wareejiyeen maayarka degmada Buuhoodle Kayse Maxamed Xaaji Cali oo isna ku wareejiyay qaar kamid ah saraakiisha ciidamada Buuhoodle jiida hore maayarka degmada Buuhoodle Khaatume State of Somalia Kayse Maxamed Xaaji Cali ayaa waxa uu ugu horeyn ka warbixiyay agabka ay ardaydu ku wareejiyeen isagoona u mahad celiyay ardayda wax ka barata gobolka Cayn ee soo gaarsiiyay ciidamada agabkana kuna booriyay in ay ka qayb qaataan difaaca dalkooda iyo dadkoodaba ciidanka guutada koowaad ee aaga hore agab kala duwan oo isugu jira bacaha roobka jaakadaha dhaxanta khadifadaha lagu seexdo iyo waxyaalo kale oo fara badan agabkaas oo ay soo ururiyeen ardayda wax ka barata degmada Buuhoodle iyo guud ahaan gobolka Cayn oo ay ugu tala galeen in ay wax kaga qabtaan baahiyaha kala duwan ee ciidanka jiida hore marka xaqiiq ahaantii taaleeg iyo waxqabadka inta leeg ay ardayda wax ka barata deegaamada Buuhoodle ay keeneen iyo sida ay ugu heelayeen wax u qabashada iyo iskarab taagista ciidankooda jiida hore balankeenu waxa weeyaan inaga wadankeena cadow baa soo galay aan naxariis lahayn oo xasuuq fara badan ka sameeyay oo haddii la ku rooyay ceelbiyoodkii iyo tuulooyinkii muhiimka ahaa ka degay maatadii iyo dadkii iska lahaa ee ku noolaa waxaa ballan inoo ah oo aan idinkula dardaarmayaa in aynu gacanna qalinka ku hayno midna qoriga ku hayno oo aynaan u kala hadhin difaaca iyo xoreynta waddankeenna gardarra laynagu soo doontay haddii aynu shahiidno ama qofkii inaga dhintaaba waa shahiid oo waxa weeye qof jannada hore ka gelaya sababtoo ah dee inagu gardarro kuma soconno nimankaas xaqdarra inagu soo doonteen xaqdarra inoogu yimaadeen xaqdarra inagula dagaalameen waxa weeye inagu waxaynu nahay shahiidiin waynu ku shahiidaynaa waddankeenna rag iyo dumar waayeel iyo dhallinyaro waxaa inoo ballan ah in aynu dagaalka ka wada qayb qaadanno si aynu waddankeenna uga saarno cadowga bilaa naxariista ah ee sida axmaqnimada u xasuuqay dadkii rayidka ahaa ee ku sugnaa goobaha ceelbiyoodka waa ogtihiin dagaalkii ugu dambeeyey maxaabiis baa la qabtay oo ay qabteen maxaabiistaa dad rayida oo shacaba ayaa ciidamadoodu gacanta u geliyeen ay yidhaahdeen ka argoosta inta laysku xidhay baa la laayey wax caalamka iyo Soomaaliya midna ka dhacay maaha oo hore inoo soo maray waa arrin dhaqanka Soomaalida aad iyo aad uga baxsan oo maaragtay laga xumaado ama laga naxo waxaan leeyahay ardayda dadaalkiina halka ka wada ciidankiina iskarab taaga gacanna qalinka ku haya midna qoriga ku qaada ciidamadana waxaan leeyahay tab allaale tabtii aad kaga saari kartaan cadowgaas isaga deegaankiina in aad u qalab qaadataan oo marnaba aydan ka daalin inta uu dhulkeenna ku sugan yahay hadduu ka baxay dhulkeenna shaqo kuma lihin doonan mayno deegaankooda doonan mayno xoolahooda doonan mayno waxaan ugu dambayn idinkula dardaarmayaa ciidan ahaan iyo cid kastoo dagaalka ka qayb qaadanaysaba Soomaalidu dhaqan bay leedahay waxaa jira wax la yiraahdo magayno ama af Soomaaliga lagu yiraahdo birmagaydo dadka waayeelka dumarka xoolaha maxasta waxyaalaha noocaas oo dhan waan kala dardaarmayaa in aan wax waxyeelaa u geysataan sidoo kale waxa ardayda agabka soo gaarsiisay ciidamada uga mahad celiyay saraakiisha ciidamada ee lagu wareejiyay agabkaasi waxaan mahad celinayaa ardayda noo keentay qalabkan halkaas oo ay ku bixiyeen qalab qadifado bacaha roobka jaakado ay kamid yihiin waan u mahad celinaynaa waanu ka guddoon aniga oo ku hadlaya afka ciidanka waxay ballantayadu tahay cadowgaas nagu soo duulay in aanu iska celinno waliba aanan ula dhaqmin sida xun ay aargoosashada
dhaqan darrada ah ee iyagu ay ku dhaqmayaan annagaan ula dhaqmaynin inaannu iska celinno dalka iyagana aanu difaacno diyaar baan u nahay. ugu dambeyntii ayaa waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii ciidamada soo gaadhsiisay agabyada kala duwan ayagoona ugu baaqay dadka ka soo jeeda deegaanada Khaatumo dal iyo dibadba in ay ka qayb qaataan xoreynta dalkooda. haddaanu nahay ardayda gobolka waxaan ugu deeqnay ciidanka iyaga jooga jiidaha hore alaab isugu jirta wax kan la yiraahdo baco qadiifado jaakado iyo agab kale oo badan waxaan ku tala jiraa inaan ka fadhiisan taageerada ciidanka iyaga waayo annaga nafteedu difaacaya dalka iyagu difaacaya diinteedu difaacaya marka waxaan ku bogaadin lahaa dadka kale ee dhageysanaya ama jaaliyadaha dibadda ha noqdeen ama ha noqdeen waxa kan la yiraahdo qaybaha kale ee bulshada inay u taageeraan ciidankooda sida annaga ugu soo taageeraan waxaan kale oo ku darayaa inta waxaan adarkaysaan meel kale lagama keenin ardayda gobolka ayaa soo urursay guddiga sare ee ardayda ee gobolka ayaa isu xil saaray inay soo ururiyaan agabkan sida aragtaan wuxuu isugu jiraa bacaha roobka laga jiirsado caawaha lagu seexdo koodhadhka dhaxanta laga xidho iyo kuwo kale oo fara badan agabka aanu soo gaadhsiinay ciidanka waxaanu ugu talagalnay in aanu ciidanka iyaga ku sugan jiidaha tusno inaanu garab iyo gaashaan iyo muruq iyo maskax iyo maal intaba aan la barbar taagannahay lana barbar taagnaanayno jihaad xadhigga ilaahay qabsada salaada iyo cibaadada ilaahay inaa qabsataan baan idinku buurinayaa dadka shacabkaana waxaan leeyahay meel kastuu joogo hadduu dabadda joogo iyo hadduu dalka joogo in ay sidaa ardaydii yarayd ee buuhoodle wax ku baranaysa u taageerayso ciidamada inay u taageeraan wixii karaankooda ana soo gaarsiiyaan hiil iyo hooba intaasaan kaga baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. agabkan ardayda wax ka barata gobolka Cayn ay soo gaarsiiyeen ciidamada jiida hore ee Buuhoodle ayaa ku soo aadayay xilli roobkii gugu si toos ah uga bilowday guud ahaanba gobolka Cayn. Maliyuun Axmed Xasan, Somali TV, magaalada Buuhoodle.